ma ogi inaad ka warqabto balse qalka naxdinta leh waa mid cabsi xambaarsan kama dhigna inaan u baroor diiqanayno Uganda si kale marka loo dhahana kama foga Soomaaliya Soomaali badan ayuu sahoy u yahay dalkaasi hadda waxaa laga soo sheegayaa cudurka Ebola kaasi oo sanado badan ka hor kala xiray wadamada Afrika waxaa horey loogu diiwaan geliyay dhimasho ahaan 358 ruux oo dhimasho dalka Guinea, Liberia 255 qof, Sierra Leone 237 dhimasho, Nigeria 1 dhimasho, isagoo ku dhacay 4 ruux. Kiisaskan waa kuwa ay waaxaha caafimaadka wadamadan diiwaan geliyeen waxa ka badan kuwa baadiyaha ku geeriyooday iyo kuwa iyadoo aan waaxda caafimaadka aysan gacanta ku dhigin geeriyooday ee la iska duugay. Waa maxay cudurka Ebola? xanuunkii ugu cabsida badnaa ee ka dilaaca Afrika ayaa mar kale calaamadihiisa laga helay mid ka mid ah wadamada ay u badan yihiin dadka Soomaalida. Kiisaska iyo dadka laga helay miyay ku jiraan dad Soomaali ah? Maxaa laga yeelayaa safarada Soomaaliya Uganda? Wax walba oo ku saabsan xanuunkan laga wada cabsida qabo inuu soo gaaro dalkeena ayaan idinkula wadaagi doonaa. balse marka hore muuqaalkan like saar si fariinteena ay meel leeru gaarto share dheh oo la wadaag saaxiibadaada si gaar ah kuwa ku nool wadanka Uganda iyo shakhsiyaadka ka shaqeeya garoomada diyaaradaha sidoo kalena follow dheh page-keena si aad u hesho barnaamijyo taxane ah oo aan halkan mar walba ku soo gudbino wad ku mahadsan tahay sida aad inoola jaanqaadayso marlabaha u fahmin inaan u baroor diiqanayno Uganda oo aan aad u jecelnahay dadkooda laakiin xagasha kale marka aad ka eegto war naxdin la ayuu u yahay gobolka oo dhan mas'uuliyiinta caafimaadka dalka Uganda ayaa ku dhawaaqay in cudurka Ebola uu ka dilaacay degmada Mubende ee bartamaha dalkaasi Uganda kadib markii la xaqiijiyay kiis la xiriira cudurkaasi Ebola macadka cilmi baarista fayraska Uganda ayaa xaqiijiyay kiiskan kadib markii uu tijaabiyay muunad laga qaaday wiil 24 jir ah tani waxay daba socotaa baaritaan ay sameeyeen kooxda qaranka ee ka jawaab celinta degdega ah 6 dhimasho oo shaki leh oo ka dhacay degmada bishan waxaa hadda jira 8 kiis oo laga shakisan yahay kuwaas oo lagu daryeelayo goob caafimaad WHO ayaa ka caawinaysa maamulka caafimaadka Uganda baaritaanka waxayna shaqaalaheeda u daabulaysaa aagga uu cudurkan ku faafay ururka ayaa soo diray sahay ay ku taageerayaan daryeelka bukaanada waxayna soo direen teendho loo isticmaali doono in lagu karantiilo bukaanka dadka qaar ayaa laga yaabaa inaysan xasuusan markii uu xanuunku ku dhuftay qaar ka mid ah wadamada Afrika sanado badan ka hor markii labaad ayuu ku soo laba kaclaynayaa wadamada Afrika si gaar ah dad Soomaaliya ay ku badan yihiin haddaba waa maxay cudurka Ebola oo barnaamijkeena maanta uu daaran yahay Ebola waa xanuun fayras oo dilaa ah kaasi oo si sahlan lagu kala qaadi karo qofkan wuxuu ku sababi karaa geeri degdeg ah haddii uusan helin baxnaano caafimaad oo degdeg ah allana uusan ka bogsiinin calaamadaha lagu garan karo waa ay badan yihiin laba darajo oo kala sarreysa ayuu leeyahay heerka koobaad waa qandho degdeg ah tabardarro badan murqaha oo qofka xanuuna iyo cunaha oo si daran u xanuuna qofka xanuunkaasi la ildaran taasi waa marka uu xanuunku bilowga yahay sida laga soo xigtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO marxaladda xigta ee darajada sare waa matag isdabajoog ah fuqbax iyo marmarka qaar qofka oo dhiigbax gudaha iyo dibadda ah sameeya cudurkan waxa uu bini'aadamku ka qaadaa markii uu xiriir la sameeyo xayawaanada qaba cudurka hilibkooda ha cuno amaba aad ha ugu dhawaado neef ahaan gacmihiisana ha ku taabto waa xayawaanada sida daanyeerka xayawaanka la yiraahdo jimbanziga kibiliga iyo garanuugta waxyaabaha xanuunkan uu la yaabka la leeyahay waxaa ka mid ah xitaa qofka haddii uu xanuunkan Ebola u geeriyoodo midkiisa ayaa halis kala ah oo ciddii u dhawaata waa ay qaadaysaa xanuunkan muddada uu cudurkan ku qarsanaan karo qofka jirkiisa waxay noqon kartaa inta u dhaxaysa 2 maalmood ilaa iyo 3 toddobaad waxaana adag in marka hore si degdeg loo ogaado cudurkan oo inta badan ku kooban qaaradda Afrika waxaa horey loogu diiwaan geliyay dhimasho ahaan 358 ruux oo dhimasho dalka Guinea, Liberia 255 qof, Sierra Leone 237 dhimasho, Nigeria 1 dhimasho, isagoo ku dhacay 4 ruux. Kiisaskan waa kuwa ay waaxaha caafimaadka wadamadan diiwaan geliyeen waxa ka badan kuwa baadiyaha ku geeriyooday iyo kuwa iyadoo aan waaxda caafimaadka aysan gacanta ku dhigin geeriyooday ee la iska duugay balse kiisaska hadda laga helayo wadamo dhowr ah sida Congo bishii hore iyo Uganda xaaladan degdega ah waxay cabsi badan u keenaysaa dadka Soomaalida ah iyo guud ahaan gobolkaba Soomaali badan ayaa ku nool wadanka Uganda kuwaasi oo magaalooyinka Soomaalida imaada dibna ugu laabto wadankaasi
hal qof oo xanuunkaasi qaba oo Soomaaliya imaada ayaa khatar gelin kara guud ahaan bulshadeena, kuwaasi oo lagu yaqaan inay yihiin dad ay dhib ku tahay kala fogaanshiyaha, isdhexgala oo aad isku jecel. haddaba dadka Soomaalida ee ku nool Uganda waxaan kula talin lahaa inay la socdaan jaraa'idka iyo wararka ka soo baxaya xanuunkan si ay taxaddar weyn ugu yeeshaan. haddii ay Soomaaliya soo aadayaanna inay baaritaan dheer sameeyaan si dalkeenna iyo dadkeenna aysan ugu soo safrin xanuun dilaa ah. su-aasha kale isweydiinta mudan waxa ay tahay maxaa la gudboon wasaaradda caafimaadka iyo tan socdaalka iyo jinsiyadaha? waa inay ugu yaraan war ka soo saaraan safarrada dadka ka imaanaya Uganda iyo qaar ka mida waddamada laga sheegay xanuunkan, iyo in bulshada Soomaaliyeed meel walbay joogaan ay la wadaagaan halista xanuunkan, iyo in qofkii ka imaada waddamadaasi si gooniya loo baaro, maadaama xanuunkan laga sheegay waddan si weyn dadkeena Soomaalida ay ula macaamilaan, tagaan kana soo laabtaan ka hor inta aan la arkin dad badan oo Soomaaliya oo xanuunkan u gudgalaya ama la dhibaatoonaya, maadaama ka hortagga xanuun walba uu malaayiin jir ka fiican yahay daaweyntiisa marka ay dhibaatadu dhacdo. ilaa iyo dhammaadka haddii aad nala joogtay fikirkaaga ku soo qor qaybta hoose ee commentiga, muuqaalkan like saar si uu dad badan u gaaro, si gaara dadka Soomaalida ay ku nool Uganda iyo dadka ka shaqeeya ee raboorada ay leeyihiin guud ahaan dadka af Soomaaliga ku hadla. ilaa dhammaadka haddii aad nala joogtana waxaan ku xasuusinaynaa inay muhiim inoo tahay inaad like saarto muuqaalkeena si uu saaxiibo badan u gaaro. ku soo biir page-keena, aragtidaada ku soo qor qaybta hoose ee commentiga. waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga.